فتلقاه لكلمي آدم من ربه حق ربه كلمات كلموين فتابه كتوبة أقبلي عليه كركيسة إنه إسغى الله هو الله التواب ومن توبة أقبله الرحيم والنحريس. ardadani dhamaysatay barashada quraanka kariimka ayaa tartan lagu ogaanayay heerkooda waxbarasho loogu qabtay madrasada albayaan ee magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika. ardadani ayaa waxa ay ku tartamayeen aqrinta iyo waliba tafsiirinta quraanka kariimka iyadoo dhanka kale ay soo bandhigayeen aqoonta ay u leeyihiin arkaanta islaamka iyo waliba waxyaabaha looga baahan yahay qofka muslimka ahi. ta'ala inna ad-diina 'inda Allahi al-islam. أما الحديث الذي يجمع أركان الإسلام فهو الآتي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ardadii kaalmaha hore ka gashay tartankani ayaa la guddoonsiiyay abaalmarino kala duwan. ugu dambeynna maamulaha guud ee madrasada albayaan ee Johannesburg macallin Ali Ibrahim ayaa tartanka soo xiray isagoona ka warbixiyay marxaladihii ay soo martay madrasadan islaamiga ahi. bismillahir rahmanir rahiim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. awalan ilaahi subhanahu wa ta'ala wa mahad iskale kadib waxaan mahad celinayaa TV-ga Hon Cable oo maanta nagu soo booqday magaalada Johannesburg nagala qayb galay tartan aanu qabanay ardayda oo quraanka tafsiirka quraanka kariimka ah aad bay u mahadsanyiin jazaakumullahu khayran. haddii aan soo laabto su'aashu walaalka i weydiiyay goortii la asaasay ama la bilaabay madrasada albayaan waxaa la asaasay 1997 kowdii bisha July ayaa la asaasay waana madrasadii ugu horeysay ee laga asaasay wadankan aan joogno ee Koonfur Afrika. waxaana lagu bilaabay arday aad tiradoodu u yartahay bilowgaas ama waqtigaas ayay soo bilaabatay waxaana bilaabay rag walaalada ducaada kamid ah arday badan baa xaaliyan hadda wax ka barata tiradoodu ay gaarayso 220. madrasaduna waxay ka kooban tahay laba qaybood laba faracan koobaad oo ah qaybta weyn iyo farac kale oo ku yaala isla xaafada guud ahaan marka la isu geeyo 220 arday ayaa hadda dhigata. waxaa jirta arday ku dhameysay quraanka madrasada sanadii hore iyo sanadkan tiradoodu guud ahaan ay gaarayso 18 arday oo aad arkayseen maanta barnaamijkii tartanka ahaa quraanka ah marka 18 arday ayaa ilaa hadda ka qalan jabisay oo quraanka dhameysay wayna dhigtaan oo duruus kale iyo muraajaco iyo waxyaabo badan baa loo bilaabay. sanadkan arday kale oo iyaguna tobaneeye ku dhow ayaa insha Allah ta'ala dhameyn doona. Xasan Kaafi Maxamed Shire, Hon Cable TV, magaalada Johannesburg.